بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوغلا بل صوغلا dadku markay soo galaan ama lacag karayo hal qof aa soo galaya astaghfirullah waxaa ku jirto 23 qof وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وايد سلامنا دمانتين فضلا سيفي عن وصوغلا waxaan rabnaa inaan ka hadlano arinta kor ku xusan saadarteed fadlan si fiican u soo gala live-kan waxaan ka codsanaynaa inaad share gareysaan yaa weligiin wax share gareyn in ma dhihin laakiin kani waa important kan yaa loo kala harin dadka oo dhan hala gaarsiiyo maadaama bil rabadaan lagu jiro khayrkana uu fiican yahay in meel kasta la gaarsiiyo daaqada iska xiran because waxaan ku baqaynaa dabeen loo soo gashano oo codkeena hadhow la maqli waayo deex walaa lambarka noo shaaci fadlan ma lagu qori karaa commentiga inta lambarka waxa lagu qoro fiin ma lagu qaban karaa sidee loogu qoraa talo halkana laga qoro waa sax may kor leen ku qorayno 20 iyo sugya 1 2 3 فيرا هذيك باشا فرعيه كجرت انت ما انت ملغو جرى دوزا قولكاس هيك سو هدلوسا كمان فوضى كده غبري ماشي هذا جيف هاي كالي marka xoogaa dad 500 miya soo galeen saac waxa badan fanaanka kaliya ee dadkiisa gurmada alfanaan dayax waa mahadsantahay gabadha if mooha farxiyo waa fiirad alquruxsana kula astaghfirullah soo waayaan dibaaji salaam dimashada hadda marka waa bilaabeynaa arintii ayada ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامنا دمانتي دتك halkan ku jiraan dal iyo dibadba waxaan isugu imaanaa anigii walaalkay Xuseen iyo walaalkay Mascuud qaboobe oo ninka naga dheera u jeedaan arrin kale oo wanaagsan oo maxaa la ii sheegay ku saabsan dadka haleelay ku kala sugan Qardho iyo baar dheere saadarteed waxaan rabnaa inaan dadkaas maxaa la ii sheegay aan u sameeyno gurmad iyo caawin niyo farxiya meeshan ka hadloosay ayaa iga bixiyay meeshan war igu soo qoraysa dumash yoo ku salaanay commentiga naga dhaaf marka waxaan rabnaa inaan arrintaas maxaa la ii sheegay aan ka hadalno oo dadkaas maxaa la masaakiinta ah ee walaalaheena ay dadka ku soo rugmaday maxaa la ii sheegay inaan u gurmano oo qof walba wixii karaamkiisa qof walba wuxuu awoodo $1 ugu yar inuu qofkii maxaa la ii sheegay awoodo inuu nagu caawiyo si maxaa la ii sheegay dadkaas walaalaheena aan si degdeg u gaarsiino caawimaad marka walaalkay Xuseen ku soo dhaweynaa deex waa mahadsantahay adii Mascuud iyo dhammaan dhalinyarada kale ee hawshan gacanta naga siinaysa arintan waa arin qaran waa ogtihiin magaalada Qardho degmada Qardho ee gobolka Bari xaaladda ka taagan waa la socotaan ilaa iyo hadda dad badan way dhinteen dadna daadadkii ayaa la tagay dad badan oo guryahoodii ay daadadka baabi'iyeen guryo la'aan iyo cunto la'aan iyo caafimaad daro intaas oo idila isku kaashtay marka waxa loo baahan yahay walaalahaas inaan garab istaagno oo wixii karaankeen ah aan ku darsano cid kale ma noo istaagayso haddaanan annaga oo Soomaali ah iscaawinin sida ogtiina dayax door weyn uu ka qaadanaya maadaama dad badan ay ku xiran yihiin waxaan rajeynayaa inuu hormuud u noqdo dhalinyaro badan oo iyagana dad badan ay ku xiran yihiin
oo inay sidaan oo ha, kale oo sameeyaan oo awoodooda dadka ha, caawiyaan dadka caawiyaan lambarkan waa kusoo diri kartaan oo halkan saaran iisoo sheeg walaal meel kastur fadlan lambarkan biink saaran yahay 53 waa kusoo diri kartaan wixii markaas maxaa la ii sheeg awoodiina ah si aan u caawino ama akoonka kor uu saaran yahay halkan hadda kuma qorna akoonka laakiin dadka mostly waxay isticmaalaan EVC plus saa darteed EVC plus ahaan waa maxaa la ii sheeg waa usoo isticmaali kartaan yaa waay furaha haddaa rabti waa 25 261 haddaad puntland iyo somaliland joogtid muqdishona sidaan ugu soo diri kartaa iyo koonfurta haddaad joogtid xitaa somaliland dadka joogaan iyo puntlandba somaliland sidaan laftirkeeda u isticmaali karaan sida maxaa la muqdisho 06 ma ka bilaabayaan 61 ay ka bilaabayaan muqdisho dadka jooga eber 6 xal ka bilaabayaan laakiin dadka somaliland jooga waxay ka bilaabayaan eber 6 xal sidan caadiga marka ugu soo diri karaan EVC ahaan ayagu waxay isticmaalaan sad laakiin si toos ah noo soo gaarsiin karaan teeda kale waa ugu mahadcelinaya markii aan wadno gurmadkii hore ee maxaa la ii sheeg labada gabdhood yaa ka mas'uul dayaxa ka mas'uul lambarka anaga ka mas'uul ah saa darteed markaan wadno gurmadkii hore ee labada gabdhood maxaa la ii sheeg Hargeysa waxaa naga soo gaarta deeq zaa'id u badan waan ugu mahadcelinaynaa walaalaheen ilaahay waxaan leenahay haydan xafido maxaa la khayrkana haydiin barakay haydiin saa'idiyo mas'uud adigana inta ku dareysid waa mahadsantihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed okay thanks 15 inaa ku jiraan oo idinka dheer hadaa istaagay Soomaalida waxaa la dhahay xeega sidoo xeeg I think maamada aad ugu fiicni xeega si loo xigtaa la ilkana ku nabad galaan maadaama bil Ramadaan lagu jiro haddana dhibaato ay haysto dad walaalaheena oo joogo I think qardho oo kaliya maahan baar dheerna waa la joogaa qardhana waa sidoo kale dhibaato ka dhacday dhimasho dad alla ayaa sida la sheegay sideen ugu gurban karnaa maadaama saddexdeen dhalinyaro isku imaanay fikir isku darsanay maadaama bil Ramadaan lagu jirona wax walba oo idinka soo gudbisiin ama soo dirsataan sidee tahay u gaari doontaa waxba ka baqina taas gurmadka ma ahan kaliya reer qardho sidoo kale baar dheerna uu gaari doonaa waxaadana dhibaato maadaama ay jirto la dhahay COVID-19 oo jiro oo magaalada dhan oo hadana cabsi ay jirto waxaa isku keenay fikir ah inaan sameeyno fundraising magaalada oo dhan maadaama kaliya aysan dadka inta badan aysan ku filnay waxay dadka soo diraan dadka magaalada in loo galo oo Mareykaneecooyin dhar wixii dadka awoodaan haddana maadaama haddana cudurkii la dhahay xitaa lacagta lagu kala qaadayaa haddana taas xoogaa challenge nagu noqotay inaan ku sameeyno haddana insha Allah laakiin wax inta dadaalkeena waa sameyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynaynaa in sida maanta anaga rajeynayn inaan si ka daran hammi meesha rajeynayn meel ka wanaagsan ina gaarno marka walaalayaal waxaan sameynaynaa xitaa dadka waxaan kaloo baaq u direynaa dhalinyarada wax kasto waxa maanta kala socodsiyo maanta maxaa la ii sheeg waa dhalinyarada ilaahayna ha noo daayo dhalinyaradeena waxaan leenahay dhalinyarada for example leh carwooyinka dhalinyarada leh dukaamada dhalinyarada qof walba awoodiisa inta la eg tahay oo example qofkii sadaqaysan karo maxaa lahaa kan kor marada kaneecooyinka dadka dharka sadaqaysan karaan waa u sameyn doonaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo dadkaas qofkii dhar sadaqaysan karo qofkii marakaneeyo sadaqaysan karo maxaa yeelay dadku kaliya ma baahno maxaa la dad biyo ku dhex nool oo waxa waaye maanta kaneeco cudur wax kasta iska iman karo saa darteed anaga waxaan ku dadaalaynaa maadaama dawladdu wado dadkii oo dhan ay wadaan anaga laakiin dhalinyaro ahaan saddexdiina maanta fikirka isku darsan waxa waaye inta kalaamkeena at least meeshii boqolkiiba 80 ay dad kala qaban lahayn ugu yaraan xitaa 20 ama 30 hadaan qabanno ama 50 meeshii markaas aan gaarno marka maadaama aan dhalinyaro nahay oo aanan u rabnay aan dadkeena si Ilaahay dartiis ah aan u caawino marka idinkan waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal inaan garab istaagtaan oo garabkeena istaagtaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan ku wada caawin lahayn dadkeena Soomaaliyeed ee maanta meeshaas ku dhiban maanta qof kale ma sugayno cid kale maanta adiyana way noo soo gurmanaya adduunka ma jiro beel caalami iyo waxaas cidna ma sugayno waxaan u baahanahay kaliya inaan maxaa la inaga isgarab istaagno oo inaga maxaa la ishaan yani isku naxariisano Ilaahay wuxuu dhahay isku naxa aydin naxariiste marka inaan inaga isku naxariisano dadka qurbaha jooga liibaan wuxuu leeyahay dadka qurbaha jooga lambarkaas ma ku soo diri karaan dadka qurbaha jooga isla lambarkaas ay ku soo diri karaan soo jecesada baaska
reer muqdisho صدقوا يران haddaan مقشو nahay dheh. صدقوا Eh, يران qofkan- مقشو قف qofkan والبا wuxuu وحuu leeyahay reer awoodo inta Muqdisho hal leh doolar maaha. qofkii awoodo wuu soo diri karaa Meel Hal doolar kasto. qofkii awoodo dayax intaas dayax doolar fanaan qaran waaye raalli ahaada anagana dhalinyaro qaran aan nahay qof kasta oo koonfurta waqooyiga meel kastoo jooga dayax mas-uul uu ka yahay maadaama uu nin dhalinyaro fanaan maya Soomaaliya ha yahay. isku qabsanina Ah. reer muqdisho reer puntland waxaas ma ahan annaga soomaaliyaa nahay siyaasadda iyo Si dhibaatooyinka Soomaali ka kala dhexeyso dadkan maxaa la ii sheeg wadanka xukuma annaga shuqul iyo shaqo midna kuma lihin waxaan kaliya oon ka hadlaynaa qabyaaladna uma baahna annaga waxaan nahay dad maxaa la ii sheeg dhalinyaro ah oo iskood u baahan inay masaakiinta u caawiyaan marka siyaasadna shuqul kuma lihin wadan kalena shuqul kuma lihin annaga soomaali qof kasta oo af soomaali ku hadlayo waa noo soomaali waana walaalkeena oon jecelnahay maanta dadka aan rabnay inaan u gurmano oo wax u qabana sida ilaahay nala ogyahana mana ahan hal qof maanta kuma naqaano kaliya waa muslimnimada iyo soomaalinimada iyo maxaa la- xitaa deegaanka ma tegin laakiin waxa intaas naga keenaysa maanta waxaa waaye inaan yacni soomaali iyo walaaltinimo iyo naxariista muuqaalada laga soo qalbigeena gudbinayo oo xoogaa na oo dhibaan naxariista maxaa la isha qalbiga u rooneen marka cid walba waxay sadaqaysan karta fadlan walaalayaal inaan ugu caabisaan oo maxaa la sheegeen hadduu ilaa yiraahdo aniga iyo walaalkay xuseen iyo walaalkay mascuud ay xilkaasna saarataan qof oo villain jooga wuxuu leeyahay inta kusoo diri karaa walaal waxaa samayn karnaa after life cabdi cabdi liveka markaan ka baxno waxaan sameynaynaa lambarka iyo akoonka labada meesha kusoo qoraynaa lambarka oo dhammaystiran meesha kusoo haddii kalento qof kasta oo message ku saabsan inuu dadkan caawiyo oo noo soo diro akoonkan pageka lambarka meesha messageska please igu soo dira messageka uu u furan yahay haddaa ila soo hadashaan waa idiin soo jawaabi doonaa insha allah hadduu ilaahay waa mahadsantahay dayax marka south africa ayaan joogaa eesee kusoo diraahe lambarkan waa idiin soo qoraa fadlan message ii soo qoro fadlan qof kasta oo u baahan inuu dadkan caawiyo message ii soo qora messajyada oo dhan waa furaya hadduu ilaa yiraahdo waana kasoo jawaabi doonaa cid kasta oo u baahan inay meesha wax ku darsato waa isla lambarkan ha halkan ku qoran haddii halkan mashquul ka dareentid whatsapp waa kala soo hadli kartaa dayax waa isla lambarkan waana ogtihiin ramadaanka acmaasha wanaagsan dhan waa la labalaabaa sadaqada baxsada walaalihiin waaye dadka dhibaateysan inaa iskaashanana wax muhiim ee waaye ma fahmaysaa okay hadda anaga livekan waan ka bixinaa instagram aan live haddana kasii noqonaynaa si aan usii sameyno wacyigelintan ku saabsan maxaa la ii sheegay caawinta marka waa mahadsantihiin fadlan waa soo dhow yahay aad iyo aad